بسم الله الرحمن الرحيم. سوماليلاند كلمية برعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب يا بان وقفر حسنها ما أنت برعو إلى موجسي إلى تهي هو يدي قرنكا أو يدو إلى علينا يسو أو قالوا قبقين عدو ما أنت وموجسين وأنا كما سنتهي قلب خلابات waxaan aad iyo aad uga xumahay inaa waqti kulul oo cadceeda aan ku soo beegmay laakiin hawsheeda lahaydoo xagga Hargeysana waa ka soo hadalnay halkana waa ka soo gaadhay laakiin ilaahay daruubina siiyey walaalayaal maanta waxaan ku jiraa doorashada laba kala dooranayo saddex madaxweyne oo kaliya waxa la kala dooranayaa siyaasadda xisbiyada tartamaya حزبية ترتمى واحد كجرة حزب النعب حزبية ترتمى مدبي كموقتا سياسة ديسة نعيب وقب وقرن لماذا السومال الذين يهرقشوا حزب وطني تضاد سنة ودن بيسي تلابين كقاضي وحي أهايين كوا كسهر جيدا هرماركا يقرن كسومال الذين أوبرينا إياه ay xukuumadan hadda aan joogno anagu ay tahay joogta dhowr bilood waxa uu ciidan geliyay buurta gacan libaax go'aanku ka soo saaray waxay ahayd inuu qaybaha ugu badan Soomaaliland ee u tiraayo xisbiga kulmiyo uu yiri shirka iyaga lagu casuumi maayo gudoomiyaha markaa joogay xisbiga wadani oo Cabdiraxmaan aha waa qaran dumis qaranka ugu qaybiyay marka uu soo saaray go'aan ah dadka ugu badan ama inta badan Soomaaliland oo xisbiga kulmiye taageera iman maayaan shirka iyaga xafladda lagu xidhaayo markhaati ay leedahay midii hore bay ku jirtaa talaabo kale u qaaday Cabdiraxmaan isla sanadka wuxuu abaabulay jabhad oo yaadana carrada u dhiibay sanad dhow way socotay oo wala waanay oo dagaal sokeeye laga wareegay ilaa uu geeyay Soomaaliya oo qarna ciidanka geeyay muddo dheer oo dhiigbaxa oo dulqaada oo Soomaaliland oo dhammi ka bariyay war nabadahay ayaa lagu soo xiriyay ma caqliga xisbiga ku wadari muu ku qaloobo waxa soo dagaala waxa uu qaaday inuu dhalinyarada u bilaabo oo yiraahdo iyadoo balaayba joogin oo Soomaaliland calood ahayn soo dhiman maysaan oo siiri qaato oo afuufo oo indhaheeno shana carruurtii ku soo dagaalamaysaan soo dhigay hore maysaan balaaya may joogin mabda'a marqura kamu waan toobin hogaamiyaha maanta u sharaxa wadani ee Cabdiraxmaan meesha uu ku socdaa garamayno waa meesha intii kale halkan maxamedka ay ka yimid way taala maanta waxa lagu tartamayaa maxaa mabda'a wadani yahay soo akhriya barnaamijka siyaasiga imika uu qoray meel ay kaga taalo waxaan raadinayaa aqoonsiga Soomaaliland soo akhriya oo soo baar hadaa ka heshaan waxa ku qoran waxaan hadal la bilaabi doonaa Xasan Sheekh war israafka Xasan Sheekh laga suuyaa miyaan laga quusareyn 12 sanadood baynu ku luminay 13 shir oo madaleysa oo madadaalisa Soomaaliland waa soo dariya afar jir dhiig iyo dhacaan boo way baxaysay rag iyo maalmo kaga baxay xorriyadeena ma macquul baa inaynu baranay xalal joogo maalin walba dawlad baa inoo dhisan waynu wajinaa adduunka tayrunahay marka laga bilaabo sharciyadda iyo taariikhdeena 4 sanadood inaga ismaamuleynay maanta aan idin sheegaya waxa taagan dalka intaa le oo inta soo colaada oo ka qayb qaatay xisbiga wadani oo aanay mid tulaalo ahayn ayaynu maanta nahay dalka qura ee dimuqraadiyadu bareeray ee doorasho qabanaya aanu cidda bariyeyn ee isagu isku filaaday miyaan dawlad isna aynu gurku gaadhay ahayn miyaan xoogii shacabkeena ahayn ninka taatiga ee wali ay balaayo kala u muuqataa siyaasaddaasi matu dalka lagu sii daayaa maanta waxay noo joogtaa waxaan maraynaa aan qayb isku wada aan taagana laba inoo joogtaa inaynu wadada wado ee dib u socodka dib u raacno xamar u bariyo tagno iyo inaynu qarannimadeena oo caalamka oo maanta Soomaaliland og yahay halkay tahay
aynu maanta hirgelinno oo aynaan ka daalin tusaale yar baan idin siinayaa 3 safar baan idin sheegayaa geli konaakan diyaar bay u ahayd habeenkaa inay nala gasho ictiraaf xidhiidhka xamar u geyso dagaal bay ku qaaday adduunka oo dhan bay ka dacweysay Kenya ku xigtay Uhuru Kenyatta اعتراف بوحة أيو ديار الوضعي وبيسكر وفرسانة أدون كودهم بحمر كو قيرسي عيد والبوية رتو عربه بس كم زي تاجرته حين كانوا يقولوا كينيا مريكا كانوا مهجية سنصور بالسفر كانوا تجني وحاهلين وبربرع عيدا كيسي وعندهم ولا تص عيدا لصميو عيدا كسومالي الله بارلمانك مريكا أيها باسكرية لبضع قلبه باسكرية أرتكل شر يلا باتوي هدين دولة الدم صباح الوهري على شرع قاسي والدولة كما ديني كرتوه وايو waxa soo gudbiyay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka maalintii ay barbaray yimaadeen ciidamada bilowgoodii yooftigii horeeyay ayaa cadawga Soomaaliland oo dhan oo uu ka qayb yahay gudoomiyaha ay wadaan u doorteen baarlamaanka wakiilada Soomaaliland oo qaybtoodu way ka qaatay ayaa waxa lagu soo qaaday weerar ilaa maanta halmadi socoto xisbiga inta qaba tartanka la galayna xagbay uu qabanaya laba jiho kala jeeda inuu socona qarannimada Soomaaliland iyo aqoonsigeena iyo inaynu dawladeena ilaashano iyo inaynu Maxamed Diiw barnaamij noo wada taasina suulayeenaya maaha waana aaminsanahay Soomaaliland shacbiyadu intuu taafahmo in qof shacab Soomaaliland taa maanta aqbalay mid kale ku daraya wadowta waxa jiray odayaal sabaabray oo yiri arrintii ka dhacday dhagartii loo galay ciidanka booliska Soomaaliland toban lagu dilay 22 lagu dhaawacay wali naafo yihiin rag yiri waxaan bad bixinayaa cirro iyo inta taageersan amar heelaha war qaranka la laayay mag laga bixin karo dambigooduna waa khiyaano qaran oo cidii geysatay iyo kuwii magta ka bixiyay waa laba dambiilo oo maanta gaadha maxkamadda la soo taagayo khiyaano qaran bay noqonaysaa haddii taa la maqlo oo reer warbeyntu qaranka la dhageysto cidii keentay iyo kuwii galay iyo kuwa magta bixiyay soo galay intuba waa khiyaamo qaran oo maalinta ay noo gaadho laga tiri doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi